السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمارك محمد علي مدح برنامج كهون كوتال نتورك. اللهم صل على سيدنا محمد. أصحابته وحويا وحدوني أوزي جابانيس يان إن اللي وذا قال كان مودو مركا إن قال كهوس جبستي الترين كاير مركا برايس كو زمانها كسو نقضي ولا فكر واي كفل عليه دنا وكا هوس نقضي شورت هلو قلو meelahaasaan lasoo raacay stoploss ganacsan dhigay zoonaha horeeya. Allahumma salli ala Muhammad. Waxaa laga yaabaa zoonayaasha markuu price gaadho inuu ka falceliyo xaggan qudheedu waxaad moodaa markuu pullback sameeyey waxaad moodaa halkaa laftirkeedu inuu dee level uu jabiyey bay tahay kan qudheeda uu harsan yahay. Anyway kan marka waxa price markuu hadba level gaaro uu ka falceliyo wax lala yaabo ma haydo oo ku talagaleynaa. Allahumma salli ala Muhammad. waxa weeye marka short loo galo Aussie Australian dollar iyo Japanese yen waan gartay. Allahumma salli ala Muhammad. haddii masalan aynu eegno US Swiss franc oo idiin soo geliyay YouTube-ka on Capital Network channelkaas aan idiin soo geliyay. already waxaan idiin soo geliyay waxay qorsheyn ahaa trendline-ka price maadaama jabiyeen hoos raaca waxa weeyaan sidoo kale bond US waan idiin soo geliyay filaya bond US na waan idiin soo geliyay. waxay ahayd meelaha halkaas price markuu hoos u jabsado waxaan lahayn levelada isku falcelinaya ayaan lahayn. waxaan muddaa sidaynu sheegaynay uu levelkaa mariyay oo kaasuu price uu ka falceliyay kan laftirkiisa uu ka falceliyay waad aragtaa inuu isku soo noqnoqday. kii ugu dambeeyay laftirkiisa uu ka falceliyo ilaa aakhirkii uu dib u noqdayba. marka 60 bimix intii la socotay waxa weeyaan already waa take profit ka qaadatay ma filaya. مثلا يوتيوب كان وكان وتا برساس لكن معنا عالم كير وشي جني وحوي وتا عالم كير عن شي جني مركو هوسو جبسدان لهين هلو قلو ليفلada برايس كو كفل عندنا وتين شي اللهم صل على محمد. haddii waxa aad u muuqanayaa مثلا 24 oo kale 5 minutes oo kale hadii geeyo ay sawirka aad ugu ekaanayaan halkaas ay bartii aan signalka iskala socodsiinay leveladan lahayn waxa weeyaan kaga bixi doonaa 60 baa u sareeyay kaas sidii aan ugu talagalay bond US shaqeeyay akhiiran markuu gaaray levelkii u dambeeyay aan doonayna uu ka falceliyo dib u noqdo taasoo ka baxay marka bond US iyo US Swiss franc labaduba iyagoo signal waan hore idin soo dhigay US Swiss franc na waa ka muuqanaya halkaas uu marinay trendline-ka markuu jabiyay price hoos u soconaya
anyway waxaan doonayay inaan la wadaago aan kusoo noqdo labadan oo ah Australian dollarka Aussie Young baan doonayay labada imankaa short aad u gashaan wuxuu sameeyey candle bearish ah oo xoogan price-ku wuxuu kasoo noqday zoonaha markuu hoos soo socdayna mar labaad wuxuu tisgareeyey zoonaha isaguna resistance kala marka waxa weeyaan price-ku hoos ayaynu raacayna iyadoo markaa aanu isha ku hayno levelada anyway hadalku intaas ku yigi waxa weeyaan markaan soo raacayna weli Aussie Young way furan tahay 1.5 kaasaan ku galo waxa weeyaan marka Allahumma salli ala Muhammad kaadi waxa weeyaan waxaan doonayo kale inaa la socotaan oo waxa u eg New Zealand Young oo aad moodayna inay same la mid tahay price-ku resistance ku soo noqday zoonahan ku dhiso support buu noqday markana resistance buu noqday ahmada price-ku inuu levelka inuu hoos jabiyey candle xoogan weeye oo sheegaya bearish marka leveladaasna ishan ku haya take profit waxa dhigaysa levelada laga yaabo price-ku inuu markuu soo gaaro uu markaa uu ka falceliyo anyway waxa weeyaan asxaabta waxa weeyaan New Zealand Young iyo Aussie Young short ha loo galo sidoo kale US Swiss franc iyo bond US iyagana iminka US Swiss franc waa furan tahay laakiin bond US dib baan la isgaran doonaa si garan kusoo dhigaya kii hore wuxuu ahaa short term marka waxaan filayaa kulli already iminka waa targetkii waa la gaaray isaga Allahumma salli ala Muhammad isaga waxaan raacnay hase inaan performance-kii wixii qabsoomay inaan sii socodsiyo Allahumma salli ala Muhammad waxa weeyaan qof walba markaad galayso just xoogaa riskigaaga baad ka taxadiraysaa riskigaaga mar walba inuu ku cayinaada mar walba badka intaad dhigaysaa mar walba inuu ku cayiman tahay sideedabana forex-ka iyo nolosha oo dhanba waxaan risk lahayn ma jiro laakiin waxa lagaaga baahan yahay inaad riskiga aad controlsho Allahumma salli ala Muhammad waxa weeyaan suuqu suuq volatile markuu doono dhaqaaqiisu markuu doono dhinacu doono dhaqaaqayo marka mar walba badka intaad lacagta aad bad ka dhigayso macnaheedu intaad trade-ka ku galaysaa waa inay xadidan tahay oo aad sii garanaysaa marka doonaysid inaad FX guul ka gaadho oo aad si caadi ah uga shaqeysto waxa weeyaan mar walba waa inaad qorshe ku gashaa qorshahana aad ku ekaataa oo qorshaha ku socotaa mar walbana ha ilaawin inaad stop loss dhigato stop loss waxa weeyaan waa inaad meel aad ku xadido khasaarahaagii ama haddii suuqu docda kale u shaqeeyo waa inaad meel aad ku xadidan karaysaa u jira waxa weeyaan marka aad saxan tahay ma aha soo afjarin macaashka oo waxa laga yaabaa waxa wanaagsan ba inaad qayb ahaan qaadato inta kalena aad trendka la sii raacdo marka aad khaldan tahay oo directionkii aad suuqa u gashay
uu suuqa u dhaqaaqi waayana riskigaaga waa inuu xadidan yahay. marka waxa weeyaan haddaad doonaysid AVAX inaad guul ka gaadho, suuqa taladeeda waxa weeyaan la siin lahaa suuqa inaad qorshe ku gashaan mar walba oo aanad suuqa iska gelin, dhaqaaq walbana aanad ka daba boodin. allahumma salli calaa maxamed. aad click way fududahay moogta, click buy sell aad ugu dhufataa. marka inaad suuqa qorshe ku gashaan waa talo. riskigana control, masalan account-kaaga boqolkiiba 2%, 1% hadba, boqolkiiba 1, boqolkiiba 2, boqolkiiba intaad markaa adigu ku wanaagsan ku soco mar walba, oo waxaad bad ka dhigaysaa boqolkiiba percentage cayiman ha noqdo oo account-kaaga percentage cayiman oo account-kaaga ah mar walba suuqa ku gal. suuqana khalaas waxa weeye haddii damac iyo maxaan ku rahdaye baqdin iyo damac labada ah, haddii labadaasaa looga taaglayahay dadka, suuqan haddaad marba hunguri noqoto iyo damac maydhan oo aad hadba markuu price-ku yaro dhaqaaqabaad sidii bisadii oo kale, waxaan ku yidhi bisad yaroo jiir aragtaad ka daba boodo, khalaas waxa weeyaan waa in aad shucuurtaada iyo dareenkaaga noocduna ha noqdo iyo suuqa sidaad uga shaqaysanaysaa labadaa waa inaad kala xadeyn yara kala xadeyn kartaa. haddaad doonaysa inaad AVAX guul ka gaadho, seebad u kala xadeyn kartaa waa inaad discipline leedahay oo aad maha suuqan guul lagama gaadho keliya waan aqaanaa, laakiin waxa weeyaan waa inaad qorshe ku gashaa, qorshihii inaad ku ekaan kartaa. waxaweyaan habka aad u dhaqmayso wey baa muhiim ah, maha waxa aad garanayso. suuqana cid kuwa khubarada waaweyn cid aan bunuugta waaweyn ragga u shaqeeya, cid aan suuqan marna faa'iidin marna khasaarin ma leh. marka haddaad intaa indhaha isku qabatood buy sell iska tiraahdo, waxa weeye marna way faa'iidaysaa marna way khasaaraysaa. rag waaweyn dee professionalka ah ee suuqan muddada badan kasoo shaqeynaya laftirkoodu uga khasaara, laakiin markaa sida guusha suuqan looga gaadhaa kuma xidhna aqoontaada iyo waxa aad taqaano khaliya. waxaa ka mid ah sidaad u dhaqmayso waxa weeyaan inaad qorshe ku galayso, qorshaha raacayso, wax kale maaha. marka waxaad iska ilaalinaysaa uun weligaa, masalan dhalinyarada kale waxay sameeyaan adeegshada dadku marka aad trade baad gelaysaa dabeedna waxa weeyaan los bay ku xidhmaysaa, dabeedna adiga khasaarey ka daba tag baad soconaysaa, markaad mid kale gelaysaa degdeg mid kale dhaarasha kii kale u gal, kii ku khasaartay maayo dhinaca kale ama mid kale aad gelaysaaba. marka adigoo sidii inaad leedahay taasi taa soo hadaboosho ama aad suuqa ka goosanayso oo kale. marka taasina waxa weeyaan waa digniin weligaa taa samaynin. waxa weeyaan khasaaros wuxuu ka mid yahay businesskan suuqa ayuu ka mid yahay. adoo degan dib haddana isu qiimee khaladaadkaaga ka faa'iidayso, dib haddana suuqa lafanagur iyo korfeyn ku samee. marka dambe ay market conditionka iyo wixii ay sawiraan oo sidaa doonaysa ay noqdaan, dabeedna just istaraatiijiyadaadii aad lahayd fuli. marka intaasaan kusoo koobi lahaa asxaabta. waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay in allahumma salli calaa maxamed in suuqa qorshe lagu galo, allahumma salli calaa maxamed mar walbana aad riskigaaga xadido. marka laakiin sida aad suuqa u qiimeynayso iyo waxa weeyaan cid walba si gaara sida aad adigu markaa kuu fudud suuqa u eg. masalan anigoo kale waxaan eegaa hadii jeer waxaa ii muhiima suuqa markuu sicirkiisu suuqu volatile yahay oo sicirkiisu uu suuqu dhaqaaqayo,
sicirkiisu si xawli isu bedelayo waxa weeyaan waayo waxa la yiri markastoo aad aragto waxa weeyaan price-ku markuu soconayo مثلا ama trend sameynaya ama dhanku doono direction ku doono ha socdo ama kor ha socdo ama ha socdo sicirka waxa jira high iyo low leeyahay meel u sareysa ficta u sareysa sicirku markii uu qaaliyoobay iyo halka uu hooseysa sicirku markii uu jabay marka isku celcelis weeyaan waxa jira range kaas dhexdooda isku celcelis bartan baa jira marka haddaad laba shay aragtaba wax doonaba ha noqdaan soo wax u dhexeeya jira Soomaa laba shay aragtaba wax u dhexeeya jira Hargeysa la saacada burcad u dhaxaysa Soomaa ama Muqdisho iyo Djibouti marka la yiraahdo garow u dhaxeeya tusaale ahaan kale meel labadii aad aragtaba waxa weeyaan bartan baa jira marka suuqa markastoo aan israado sicirku wuxuu ka fogaaday average-kii dhexe waxay taasi itustaa in uu suuq mar labaad ku soo noqon doono fafaala ah waxaan odoros karaa si hilaadin karaa inuu suuq jaha khaldan u dhaqaaqay oo uu soo noqon karo dadna markaan aad aragto in volume-kii suuqa iyo lacagtii suuqa la gelinayna ay si dhintay ee ay meesha ka baxdayna waxa weeyaan waxay ku sii xaqiijinaysaa taasi inuu soo noqonayo haddaad aragto markii waliba ragga waaweyn ay suuqa kala baxaan positionadii ka baxaana waxa timaada in sicirku hore directionku uu socday uu hore u saankay waa اللهم صل على محمد dadna intaas markay dhacdo waxa dhacaysa in jaha cusub la qaado oo trend cusub ay kuusato dadna trendka cusub qaadaysa u kuusato dad la janqaada hadii kalena markiiba traders ku kala duwan yihiin oo kala dabeecado waxa dhacda marka trendku bilowga tahay lafteeda qola iska jecel traderska qolada waliba trendka aad la raacda tradersku qarbo sida qarbo scalping ku shaqeysa qarbo marka pips yar raadiya qarbo jecel trendka la raacaan marka qola jecel trendka inay la raacaan laftirkooda qaar waxa weeyaan jecel yihiin inay faa'iidadooda markiiba in ay qaataan bal qayb ahaan dadna waxaad imanaysa taasi ay sababtaa in sicirku isa soo yaraado xawligu ku socday inuu isdhimo markaas laakiin hays dhimee maadaama jaha cusub la qaaday macnaheedu waa maxay macnaheedu waxa weeyaan in sicirkii mar labaad qiimo mukhaarij ah inaad ku keenaysid qiimo inaad ku heli karto qiimo mukhaarij ah weey marka asxaabta hadalkan badiyay waxa weeyaan macnaha waxa uga dan leeyahay waa inaad suuqa markaad suuqa akhrido اللهم صل على محمد aad fikir ka haysato adoo kalsoonida qaba suuqa gal dawladna kalsooni 100% hima jirta ee suuq maadaama uu yahay suuqa nool ee wax markuu doono isbedeli kara oo yahay de waxaana muuqdaa chartkana muuqdaa yihiin habdhaqankii aadamaha waxa weeyaan markaad suuqa aad analyze garayso ee aad qorshe ku gasho dadna hadduu direction ka doonayso u dhaqaaq waayna dabcan qorshe waxa weeyaan qorshe ka sii yeelata oo khasaaraha ku xadidi kartaa intii inaad sii ogeyd oo mesela ku salaysan percentage-ka account-ka anyway waxa weeyaan asxaabta intaasaan kusoo koobi lahaa اللهم صل على محمد waxa weeyaan
iyadoo free baan muuqaalkan idin soo dhigayaa channelka Home Capital Network. haddii fadlan ku cusub subscribe bay saaraysaa belka yarna way taabanaysaa si loo socoto muuqaalada xiga markastoo video bilaash idin soo upload garayo channelka idin soo geliyo. اللهم صل على محمد. عندي كلا وحي فريمة فلا وسؤال حق وصاق سوق الكرتان هدي جران بيرس مركا وبانتين إن سيجارة اللي يدين لو ذاقو وحويان أو بانتين مركا أنا لسيسنا إنكو سمعنا قف دونية وحوي صاع سكر حق وصله. اللهم صل على محمد. أنت سنكسوكو لها وعشر ماركوين له شقة وناكسن تضوار عصب إن شاء الله تعالى شقة وناكسن. اللهم صل على محمد. التسكسك بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.